imisaan u baahnahay si aan u iibsado guri 700,000 ah maanta su'aasha kaga jawaabaya laakiin haddana ugu cusubtay markii wadan soo boqotay tahay magacaygu waxa la yiraahdaa daahir bulshada waxa ka caawiya gurigooda iska sii gadan guri cusub inay iibsadaan insha Allah soo qabsadkayga sahanrealty.com nambarkayga shida kale doontaa oo ku bilaabay waqti badan kaaga lumin haddii aad maanta iibsato guri 700,000 ah gurigaasi at least waxaan filayaa inaad dhigi doonto 10% hadda 10% dhigto lacagta waxay noqonaysaa 70,000 lacag kale loo yaqaan jirta closing cost lacagtana roughly 3% noqota badan oo meesha ugu badan waxa ka soo qaaday 21,000 so gurigaasi waxa kugu tagi doonaa $91,000 kugu tagi doonaa like always waxaad kula taliyaa inay save garaysato lacag 100,000 inaad save garaysato so times ka kugu dhufanayaan waa sanadka waaye 30 sano 15 sano ilaa 10 sano bay kugu dhufanayaan laakiin badan 30 years dadka ugu dhuftaan maanta rate meesha marayaan waa 6.7 ay kugu dhufanayaan principal iyo profit tan kugu dhufto isku darkooda ay noqdaan waxay noqonayaan ama profit ama interest 4,103.77 isku noqonaysa lacagta property tax kana kugu charge gareyn doonaan around 650 kugu charge gareyn doonaan insurance kana roughly 240 mid ka jabana soo hesho laga yaabaa waxa kale maadaama aad bixin waasay lacagtii 20% waxay kugu charge gareyn lacag loo yaqaan PMI oo private mortgage insurance ah so lacagtaas oo roughly 250 ah so hadda total gurigaas waxa kugu tagi doonaa 5,309 this number was bedeli doonaa credit card ku xiran haddii credit card low yahay around 58 uu yahay numberku ka badanaya so hadda su'aashaas weydiinaysa waxa tahay like imsa u baahan tahay inaad ugu qalanto so roughly minimum waxa loo baahan inaad samayso $150,000 so bangiga sidan ayuu sameeyaa lacagtii aad samaysay 150,000 kaasi ama hal qof ku sameeyo ama laba qof ku sameeyo it doesn't really matter waxa ku samaysan divide by 12 u dhahaya so roughly waxay noqonaysaa 12,500 haddana wuxuu kugu dhufanayaa wax loo yaqaan DTI debt to income ratio oo deemi qof bilaadan nool baata wax baa cuntaa so waxyaasho dhanba ka jirayaan so roughly that one waxay noqonaysaa markii laga jaro lagu rut 43 gaasi 5,375 ku noqonaysaa so hadda arkaysaan you barely qualify hadda gurigan almost uma qalmaysid laakiin waa u qalmaysaa laakiin aad lacagtada hooseysa so tan waxa lagu talagalay inay noqoto zero debt oo basically ina deem lagu lahayn hadii lagu leeyahay car payment bixiso credit card debt lagu leeyahay student loan lagu leeyahay hadii lagu leeyahay any other debt lagu leeyahay problem ma qalmaysid hadii taa dhacdo oo deemaas lagu leeyahay lacagta uma qalmaysid so the only three options haysataa the first option aad sameynayso waxa noqonaysaa number 1 you have to increase your income kaadina kor u qaado so that means ina qof co-signer soo raadisa way ama qof guri kula qaato ama gabadha habrta ha noqoto it doesn't matter ha noqoto qof ina ku dartaa la rabaa tan labaad waxa noqonaysaa lacagta down payment ina kor u qaado so that the last option haysto waxa noqonaysaa deemaha lagu leeyahay kulina baabiso so that's the only thing that's the only way sameyn karta guriga ugu qalmayso hadii kale waxa noqonaysaa as always in ku sheegay ina nidaamka process kana raacdo waxaan la jiray program dadka ku bixinaya mortgage-kooda 5 to 7 years programkaas waxa ugu magacaabnay the fast mortgage freedom dad badan over 300 people ay isregistrayay waxaan rabnay programkan inaan qabno May oo dhici waayay June ayaan ku wadnay haddana dhaco most likely inuu dib ayaan ku qiyaasi doonaa ilaa somewhere in July uu dhici doona programkan waxaan ku tusaynaa the framework mortgage-kaada saa ku bixin karta 5 to 7 years dadka waxay iska registraynayaan website-kan loo yaqaano the fast mortgage freedom qaybta webinar-ka tagaysa click ku dhufo isregistrate insha Allah programku soo socdaa laakiin in the meantime fadlan soo follow garee video kala soo aragto wa salaamiya assalamu alaykum